Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaan sameyneynaa blood type blood grouping ayaa maanta sameyneynaa insha Allah. Blood grouping markaa sameynta waxaa lagaga baahan yahay bloodkii oo dhiiga ah iyo antigenadii oo lagu baari lahaa dhiigga. Waxaa kaloo lagaga baahan yahay in aad haysatid slide inaad haysatid oo aad dhiigga saari lahayd, dhiig ku shubi lahayd. Marka koowaad magac ayaa u baxsaneynaa, slide hortiisa ayaa magaca warqadda ku qorneynaa, antigen A iyo antigen B iyo antigen D. Marka hore antigen A ayaa soo qabsaneynaa. Antigen A sida aragtiin hal drop oo antigen A ayaa waxaa ku shubeynaa meesha ku aadan antigen A oo dhiiggii blood dhiigga ahaa. Kadib waa xirneynaa, meel ayaa dhigeynaa. Waxaa soo qaadaneynaa antigen B asana sidoo kaleeta hal dhibic ayaa ka qaadaneynaa, waana ku shubeynaa. Waa xireynaa, halkan ayaa iska dhigeynaa. Kadib waxaa qaadaneynaa antigen D asigana sidoo kaleeta hal dhibic ayaa ka qaadaneynaa, waan ku shubeynaa dhiiggii, waan xireynaa, halkaas ayaa iska dhigeynaa. Kadib waxaa soo qaadaneynaa stikerkii yaraa oo waxaa soo qaadaneynaa aan isku makas jara lahayn oo aan isku qasi lahayn ama aan isku walaaq lahayn. Antigen kasto midkii dhiiggii iyo antigen markaa isku shubno waan isku qaseynaa, si fiican ayaa iskugu qaseynaa. Kadib stikerka aan isticmaalno waa tuureynaa. Stiker kale oo stub ayaa soo qaadaneynaa, asana sidoo kaleeta biigii ayaa hadda u imaaneynaa oo ayaan agin misgareyneynaa. Kadib waxaan kaloo misgareyneynaa antigen A ayaa u imaaneynaa, asana waa mix gareyneynaa, waa si fiican ayaa iskugu qaseynaa. Markaa si fiican iskugu qasno cabaar yar ayaa sugeynaa, dhiigga sidoo noqona ayaa fiirineynaa. Okay, waa ka AB plus waay, AB plus ayuu noqday. Goorme ayaa qofka loo sameeyaa blood grouping? Qofka blood grouping waxaa loo sameeyaa marka operation loo diyaarinayo oo kale. Waxaa loo sameeyaa qofka blood grouping si loo ogaado dhiiggiisa noocu yahay, haddii uu baahan yahay in dhiig lagu shubo oo kale. Waxaa kaloo blood grouping loo sameeyaa qofka marka HB-giis low oo noqdo 5 iyo wixii ka hooseeya. Haddii uu noqdo qofka HB-giis uu dhaco, qofka waxaa loo sameeyaa blood grouping si loogu shubo dhiig loogu shubo. Waxaa kaleeta qofka blood grouping loo sameeyaa marka uu doonayo inuu ogaado blood type-kiisa uusan garanayn. Qofkaas asana waa loo sameeyaa blood grouping si uu ogaado nooca dhiiggiisa uu yahay, asana qofkaas waa loo sameeyaa. Haddii aan fiirino in aan magacaano dhiigga, waxa uu noqon karaa dhiigga inuu kala go'o A iyo D inay kala go'aan. Markii A iyo D ay kala go'aan, dhiiggaas waxa uu yeereynaa A positive ama A plus ayaa uu yeereynaa dhiiggaas. Haddii oo dhiigga A keli ay kala go'do, D iyo B aysan kala go'in, dhiiggaas waxa uu yeereynaa A negative ayaa uu yeereynaa dhiiggaas. Halkaas ayaa waxaa uga baxnay A positive iyo A negative. Haddii aan fiirino O plus iyo O negative, waxa uu noqon karaa O positive waxa uu noqon karaa dhiigga oo keli inay kala go'do, aysan kala go'in dhiigga B-ga iyo dhiigga A inaysan kala go'in. Markaas ayaa waxa uu yeereynaa O positive oo dhiigga keli ay kala go'do. Haddii dhammaan dhiiggii oo dhan aysan kala go'in, dhiiggaas waxa uu yeereynaa O negative. Dhammaan A iyo B iyo D dhammaan aysan kala go'in, dhiiggaas waxa uu yeereynaa O negative ayaa dhiiggaas ugu yeereynaa. Haddii aan fiirino blood grouping AB markaa fiirino kaleeta, AB waxaan dhihi karnaa saddexda dhiig A iyo B iyo D saddexdu haddii ay kala go'aan, dhiiggaas waxa uu noqonayaa AB positive ayuu noqonayaa, AB positive ayuu noqonayaa oo hadda aan sambalka hadda aan sameyneyno oo kale. Haddii A iyo B ay kala go'aan, D aysan kala go'in, dhiiggaas asana waxa ugu yeereynaa AB negative ayaa ugu yeereynaa, dhiiggaas asana sidaas ayaa ugu yeereynaa AB negative ayaa ugu yeereynaa dhiiggaas. Halkaas waxaa uga baxnay haddii aan fiirino B waxay noqon kartaa in ay kala go'do A inaysan kala go'in, ay kala go'aan oo keli B iyo D inay kala go'aan. Haddii ay kala go'aan B iyo D, haddii ay kala go'aan, dhiiggaas waxa uu noqonayaa B positive ayuu noqonayaa ama B plus ayuu noqonayaa. Haddii A iyo D aysan kala go'in, keli ay kala go'do B, waxa ay noqonayaa dhiiggaas B negative ayuu noqonayaa. Waxaan dhahnay haddii B plus dhiig marka uu noqonayaa waa inay kala go'aan B-da iyo D-da inay kala go'aan. aysan kala goyn dhiigaas markaas waxa uu yeereynaa
b plus. haddii bda keli ay kala go-do a iyo d aysan kala goyn dhiiggaas waxa ugu yareynaa b negative ayaa ugu yareynaa. intaas ayaa ah qeybaha blood grouping lagu sameeyo iyo sida loo magacaabo. waxaan rajeynayaa inay ka faa'iideen insha Allah. haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena subscribe saar, like saar, nagu soo bir. haddii aad nala joogtiin waa ku mahadsan tahay, siina share garee walaalahaaga si ay uga faa'iideystaan muuqaalkan. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.